cigaal shiidaad caruure wuxuu ahaa nin aad u cabsi badan. Sheekadan waxaa la yiraahdaa cigaal iyo habeen socod. cigaal habeenada ka mid ah ayuu wuxuu yiri waan soconayaa oo waxaan raadinayaa halka dhuntay. cigaal habeenkii ayuu socday, markii uu meel dhexe marayay ayuu wuxuu arkay wax fadhiyo oo uu u qaatay inay baal yihiin. cigaal aad ayuu u baaqay, meeshiisa kama uusan dhaqaaqin. in cabaar ah ayuu meeshii taagnaa. wuxuu ku fekeray haddii aad dhaqaaqdid bahalkan wuu ku cunayaa. meeshan waxay ahayd meel mugdi ah, habeen bar ah, wax iftiina aysan jirin. cigaal wuxuu fariistay meeshii uu taagnaa, ma uusan dhaqaaqin. habeenkii oo dhan ayuu meesha fadhiyay ilaa waagi uu ka baryo. markuu waagi uu baryay ayuu wuxuu arkay wuxuu caawo dhan ka baqaayay oo uu meesha u fadhiyay inay tahay geed kurtun ah. cigaal wuu istaagay wuxuu yiri kurtun yahow, ma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin. kurtiyoon waxaan kuu mooday libaax, waxaad noqotay se kurtun, waxaanse loo noqon doonin guura habeennimo. cigaal wuxuu ugala jeeday in uusan habeenkii xilli dambe uusan socon, baqdin uu ka baqaay inuu bahal cuno. sidaas ayuuna cigaal go-aan ku gaaray inuusan habeen dambe soconin. sheekadaasna waxaa la yiraahdaa guura habeen iyo cigaal.